Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa ku guuleystay biladda abaalmarinta nabadda sida uu shaaciyay guddiga bixiya abaalmarintaasi oo fadhigiisu yahay dalka Norway. Magaalada Oslo ee caasimadda Norway ayaa lagu guddoonsiin doonaa abaalmarintani bisha December, waana qofkii boqolaad ee ku guuleysta abaalmarintani oo lacag ahaan u dhiganta $900,000. waxaa la tartamayay ra'iisul wasaaraha 223 qof iyo weliba 78 hay-adood. haddaba waxaynu warbixintan ku eegi doonaa waxyaabaha uu ku mutaystay Abiy Ahmed abaalmarintaasi. waxaa la bogaadiyey dadaalada nabadda ee uu garwadeenka ka yahay ee gobolka iyo kaalinta uu ka qaatay iskaashiga caalamka. heshiiska nabadda ee wada gaadheen Itoobiya iyo Eritrea ayaa lagu soo afjaray dagaalkii 20 sano socday ee u dhexeeyay labada dal. guddiga Norway u qaabilsan abaalmarinta Nobel Prize-ka ayaa warqad qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegay in Abiy Ahmed uu ku mutaystay nabadda uu la galay dalka ay colaadda muddada dheer ka dhaxaysay ee Eritrea. guddiga ayaa sidoo kale bogaadiyey doorka ay arrintani ka ciyaartay Eritrea, waxaana qoraal ay soo saareen guddidaasi lagu sheegay nabaddu kama timaado hal dhinac oo keliya. markii Abiy Ahmed gacan nabadeed fidiyey, madaxweynaha Eritrea ayaa isaguna ka jawaabay, doorna ka qaatay in heshiis nabadeed oo rasmi ahi ay labada dal kala saxeexdaan. madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ku guuleystay 2009kii doorkii aan caadiga ahayn ee uu ka qaatay diblomaasiyadda caalamka iyo wada shaqaynta shucuubta adduunka. dadka kale ee ku guuleystay abaalmarintani waxaa ka mid ah gabadh u dhalatay Pakistan oo ku qaadatay u dhaqdhaqaaqidda arrimaha waxbarashada gabdhaha, taasi oo lagu magacaabi jiray Malala Yusuf oo ku guuleysatay 2014kii. midowga Yurub ayaa ku guuleystay 2012kii, halka Kofi Annan oo ah xogayihii hore ee qaramada midoobay uu ku guuleystay 2001dii. sidoo kale waxaa hore ugu guuleystay madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Nelson Mandela, madaxweynihii hore ee midowgii Sovieti Mikhail Gorbachev, iyo weliba madaxweyneyaal kale oo badan oo uu ka mid ahaa madaxweynihii hore ee dalka Masar Anwar al-Sadat. haddaba qaybtan dambe ee warbixintan waxaynu ku eegi doonaa shakhsiyadda uu yahay qofkan ku guuleystay sanadkani ee ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. markii uu ra'iisul wasaaraha noqday bishii Abriil 2018kiiba, Mr. Abiy wuxuu isbedelo badan ka hirgeliyey dalkiisa oo loo arkayay qaran ay dowladdu gacan bira ku haysay. tan iyo intii uu hoggaanka dalka Itoobiya uu qabtay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, waxa uu haatan hal sano u buuxsantay, waxaana dalka Itoobiya ka socda isbedelo dhinacyo badan taabanaya. kumanaan maxaabiis ayaa uu sii daayay oo u badnaa mucaarid, kuwo kale oo dibad joog ahaa ayaa dalka dib ugu soo laabtay. waxa uu soo afjaray colaaddii muddo 20 sano ah dalkiisa kala dhaxaysay Eritrea. Dr. Abiy Ahmed ayaa wax laga weydiiyey sarreynta sharciga hirgelintiisa iyo inay xukuumaddiisu dhibaato kala kulantay, taasina ay sababtay dhimasho iyo barakac aad u badan oo dhan walba ka dhacday. ra'iisul wasaaruhu maruu arrintaasi ka jawaabayay waxa uu yidhi, sarreynta sharciga howlo aad u badan ayaa noo qabsoomay, inkastoo ay jireen arrimo qaarkood oo u baahan wakhti badan in la geliyo balse aanu bilaabmin. tusaalooyinka wanaagsan ee aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah sarreynta sharciga sidaan uga hirgelinay deegaanka Soomaalida, deegaankaas oo uu ku sugnaa xaalad dalka intiisa kale ka duwan. deegaankaasi waxa uu samaystay 30,000 oo askari oo hubeysan. haddii ay dowladda dhexe faragelin inta ay ku samayso ay xukuumadda jirtay bedeli lahaynna, waxaa dhici lahayd in deegaankaasi sawirka guud ee dalka Itoobiya leeyahay u bedeli lahaa, ayaa uu yidhi. laabooyinkan ku hirgelinay sarreynta sharciga waxay sababtay in dowladdu ay gacanta ku soo dhigto 47 qof oo faldambiyeedyo kala duwan deegaankaasi ka geystay. deegaanka Soomaaliduna maanta waxa uu ka mid yahay deegaamada ugu degan marka loo fiiriyo sidii uu hore u ahaan jiray. taasina waxay ka mid tahay tallaabooyinka aan qaadnay ee sida buuxda ugu guuleysanay sanadkii hore, ayaa uu yidhi ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. sidoo kale dhibaatooyinka ka dhacay qaybaha kala duwan ee dalka ay ka midka tahay dadka ku lug lahaa ay tiradoodu gaadhayso 1,000 kor u dhaafayso ayaa dacwad lagu soo oogay oo maxkamadeyntooduna ay haatan socotaa, ayaa uu yidhi ra'iisul wasaaruhu. 2 qof oo dil ka geystay magaalada Shanshaame ee deegaanka Oromada xabsi daa'im ayaa lagu xukumay. Dr. Abiy Ahmed ayaa mar uu ka hadlayay isku dhacyada qowmiyadaha dalka Itoobiya ee sii badanaya waxa uu sheegay in dad gaadhaya 3 milyan oo qof ay ku barakaceen colaadda qowmiyadaha ka dhex dhacday. halkii sano ee aan xilka soo haynay 1.5 milyan ku dhowaad ayaa deegaamadoodii ka qaxay, halka 1.5 milyanna ay hore xerooyin ugu sii jireen xilligii xilka lay magacaabay. anigoo
si kooban uga jawaabaya waxaan dhisnay wasaarad la yidhaahdo wasaaradda nabadda oo ku shaqo leh inay dalka gudihiisa nabad ku soo dabaasho waxaana nala gudboon ayaa uu sheegay in wasaaraddaasi inaan dhinac walba ka taakulayno innagoo oo kaashanayna shucuubta dalka iyo hogaamiyayaasha diimaha iyo dhaqanka khilaafka u dhexeeya deegaanka Tigreega iyo xukuumaddiisa ayaa mar wax laga weydiiyey xaqiiqdii markaan ka hadalno waa ay jiraan khilaaf inoo dhexeeya aniga iyo xukuumaddii Tigreega laakiin waxaan isku khilaafsannahay waa waxyaabo yaryar oo aan filayo in mustaqbalka la xaliyo balse waxaan ka wada shaqaynaynaa danaha guud ee dalka iyo deegaanka Tigreega waxa uu intaasi ku daray Tigreega oo kaliya aysan ahayn deegaamada xurgufta kala dhexeysa dowladda dhexe waxa uu sheegay inay ka mid yahay deegaamada Oromada Binshanguulka iyo kuwo kale waanu ku faraxsannahay in maanta deegaan waliba wixii uu rabo inuu nagu taageero wixii aan ku kala duwanahayna uu nagu khilaafo muddada sanadka ah furfurnaanta siyaasadeed ee aan dalka ka hirgelinay ayayna ku timi taasi ayaa yiri ra'iisul wasaaruhu ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa wajahaya xaalado adag oo dalkiisa ka soo wajahaya deegaamada qaarkood kuwaasi oo haatan qaar ay ku dhawaaqeen inay ka go'i doonaan Itoobiya intiisa kale waxaana arrintaas ay tahay mid hortaala ra'iisul wasaare Abiy Ahmed